بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواده حلقة عصبية إن شاء الله بي سي واي تي في. إن شاء الله حلقة دان وحين كو إيغينا This video was amazing, really amazing. In 15 minutes, I focused on this video so hard. The meaning and the feelings, everything I felt was so good. إن شاء الله بإذن الله الكريم وحين كو إيغينا نينكان أو دشي ودنك جابان iyo nin kale oo isaguna Ingiriiska u dhashay oo maaragtay laba nin oo dhalinyaro ah oo maaragtay labaduba ay soo muslimeen intii aanay soo muslimin ka hor waxa ay markaasi dhageysan jireen oo inala dhageysan jireen quraanka sida caadada u ah maanta yani maxaan ku raahdaa dadyo fara badan oo maaragtay daafaha caalamka ku kala nool فليتفضل مشكورا والمحاضرة سامين ku yeelatay baynu eegaynaa oo sababta u noqotay inay soo muslimaan إن لم تظفري لا تجزعي قرآن الله. A human being, regardless of who they are or where they are or what they do, will have this curiosity. They'll want to know, bini aadamka oo dhan meeshay doonaan ha joogaan do I have a purpose, and if so, waxa ay what is it? haystaan wax la yiraahdo ogaansho inay isku dayaan inay ogaadaan wax dareenkaas baa ku abuuran sidaasi waxa yidhi Yusuf Estes oo ah maxaan ku raahdaa nin ahaan jiray kristaan oo soo muslima iminkana noqday daaci ka mida ducaadda muslimiinta iyo fara badan ay gacantiisa ku soo muslimeen. And it's a very simple thing, and that is that worship be for him alone without any partners. waxa uu tilmaamay markaasi waxa laynoo abuuray a test from Almighty in God. ay tahay That's why we're waxaynan born, inagu and haddaynu that's why we maantaba die. fikirno Because there has to aynaan be a garan karin beginning and an end for us laakiinse to be tested ilaahii on. abuurtay The nolosha next life, iyo after aadamaha this life, ayaa no garan one will kara ever die again. maaragtay A bad person sababtu or a good dadka u person. abuurtay. Both are brought back, and they continue to live in the next life, either in good shape or not so good shape, depending on how they did on the test. waxa uu inoo caddeeyey The sheekh Yusuf worship Estes of the God in of maaragtay Abraham. ilaahay subxaana wa That tacaala was what was oo taught ah by ilaahay these prophets. ma garanaysaa nabiyullaahi The Lord ibraahim of the soo Arsh diray al-Kursi. iyo We're talking about ambiyada the Lord of the world. gebi ahaanba Alhamdulillahi Rabbil Alameen. inuu maaragtay We're u soo talking diray about the una Lord soo of the dhiibay entire fariin universe and beyond. waxaa soo galay hadda shiikh The kale entire universe and beyond. You know, we live in this dunya, and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. موضوع uu ka hadlayo sheekhanu waxa weeyaan موضوع ku saabsan weynida ilaahay subxaanahu wa tacaala nin walba wuxuu ka dhageysanayaa gurigiisii waynu eegaynaa insha allah bal sida ay saamaynta ugu yeelato. Fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this waxa ku moment nool in time. adduunyadan aynu joogno in ka badan yani yani maxaan ku rahdaa billions dad ah ayaa ka badan baa ku nool laakiin adduunyadan marka la barbar dhigo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sameeyey yani samaawaadka wuxuu ku sameeyey waxay noqonaysaa mid aan qiimo lahayn. aynu isku dayno in aynu isbarbar dhigno dhulkan aynu ku noolahay iyo qorraxda. haddii aad isku daydo in aad qorraxda ku riddo dhulkan aynu maanta ku noolahay in lagu dhex rido qorraxda haddii inta qorraxda la furo dhulkan lagu dhex rido si aad qorraxda u buuxiso waxaad u baahanaysaa 1,300,000 oo kun oo dhul. يعني qorraxdana waxa la yiraahdaa waa xidigta ugu yar xidigaha halka maxaa ka muuqata yani weynaanta ay qorraxdu la eg tahay iyo sida ay maaragtay ay u weyn tahay ayaa meeshaasi ka muuqda 1.3 million earth in the sun. Allahu Akbar.
waxaa gelaya qorraxda buu yidhi oo buuxin kara uun haddii dhulkeennan oo badihiisii iyo wixiisii oo dhan wata lagu rido maxay qorraxda lagu dhex rido inta dusha laga furo waxa aynu u baahanaynaa 1,300,000 oo dhul baa loo baahanayaa waynu sii wadaynaa Allah is the greatest. The sun is ilaahay baa wax walba ka weyn Allah is the greatest waxaa lagu macnayaa Allahu akbar maaha macnaheedu ilaahay baa waxaasuu ka weyn maaha waa wax kasta ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka weyn bal weynida qorraxda intaa leegda one star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. waxaase jira buu yidhi sida sawirka ka muuqata xidigo ka weyn xidigta loo yaqaano qorraxda milyuumaad jeer ka weyn you tell me this that you need millions and millions of stars to make one galaxy waxaad u baahanaysaa yani milyuumaad iyo billions xidigaa si aad u hesho waxa loo yaqaano galaxiga inagu waxa la waxa xidig maanta caalamka isheenna iyo qalabkeenuba ay qaban karaan waxa la yiraahdaa waa hal galaxy bay qaban karaan laakiin waxa jira yani wax ciidda ilaahay aynu ku socono ka fara badan oo galaxy ah oo kale and then you tell me this that there are zillions of galaxies out there let me tell you on top of waxa jira oo kale buu yiri zillions kale oo maxaan ku dhahdaa iyaguna galaxy ah haddii galaxiga luqadda Soomaaliga uma lihin laakiin luqadda Carabiga majmuuca shamsiya ayaa majmuuca shamsiya waxa la yiraahdaa inta ay qorraxdu ku wareegto marka kadibna qorraxdan oo dhan iyo waxan oo dhan waxa la isku sii yiraahdaa iyo inta xidig inoo muuqato oo dhan galaxy baa la isku yiraahdaa waa magaca ay maaragtay scientifically u bixiyeen this my friend after this whatever you see above when you raise your head and you look above whatever you see above the zillions and zillions and zillions of galaxies waxa aad dusheena ku aragtaa this is everything there is within the first heaven marka aad eegto waxa soo yani xidiga ah ama waxa soo galaxy ah oo ciidaynu ku socono ka badan waxa ay maaragtay ka tirsan tahay samaa dunya oo kaliya samada adduunyada oo qura ay intaas oo dhan ku jiraan laakiin waxa jira yani 7 samo samadii kastana waxa loo socdaa sidii nabiyullaahi Muhammad tilmaamay 500 oo sano haddana 500 oo sano samada labaad haddana saddexaad haddana ta afraad haddana ta shanaad haddana lixaad haddana toddobaad 500 oo sano ayaad u baahanaysaa inaad socoto qalabka la isticmaalaya waa maxay ilaahay baa yaqaana qalabka lagu soconaya markaasi ma xawaaraha iftiinkaba mise waa wax ka sii dheereeya waxaan filayaa inay tahay wax ka sii dheereeya walcilmu cinda allah in comparison to the kursi of Allah haddana waxaa soo samaawaada oo sidaa u waaweyn marka maaragtay la barbar dhigo carshiga ilaahay iyo kursiga ilaahay waxay noqonayaan waxba yahay yani waa kii nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam buu leeyahay sheekhu يعني إن يعني أي لم يدنقونيسو يعني إن لو قلت ورث حرها كاتونك يعني فرقلك. Give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the kursi of Allah. marka kursiga ilaahay iyo 7 samo iyo xidigahood iyo inta ay leeg yihiin iyo inta iyagu isu jiraan marka la barbar dhigo yani kursiga wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa ka ilaahay مع قرنس آية كرسي كوشيغي وسع كرسيه السماوات والأرض سماوات كأردن حديقها سوى وين فرع بدنه كجرة وحاس أردن هدي لب بربر ديغو مركاسي كرسيغا وحي نقونا يان محي فرقل
lagu tuuray meel saxara ah yani waa wax aan waxba ahayn Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert. dii fargalkaas uu ina tusayo You know that ring lagu that tuuro we take saxaraha off from our fingers muxuu noqon and karaa place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. wuxuu noqonayaa waxba yahay haddii carshiga ama kursiga lagu tuuro Is the ring, and the kursi of Allah is the Sahara Desert. marka wuxuu leeyahay yani isbarbardhigii buu samaynayaa sida waxaan u kala waaweyn yihiin buu samaynayaa marka wuxuu leeyahay haddii macnaha wuxuu noqonayaa midna waxa la ekaanaya maxaan ku dhahaa fargalka waxa la ekaanaya maxaan ku dhahdaayey samaawaadkii iyo dhulalkii iyo wixii oo dhan oo la isku daray iyo xataa carshigii wixiiba haddaad isku wada darto oad markaasi kursiga u soo bannaan dhigto waxay noqonayaan maxay yani fargalkaas oo kale ku noqonayaan kursiga marka wasica kursiyuhu samaawaati walard bal weynaanta intaa la eega meesha taaladay After the kursi of Allah, you have the arsh of Allah. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have وكان the arsh of عرشه Allah. على Again, الماء Rasulullah has given يعني انت لا ابورين سماواتك وكان عرشه على الماء با إلهي سبحانه وتعالى وجيد so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. waxaynu qaadan karnaa tusaale aynu markaasi fahmi karno isla tusaalihii buu ku celinayaa mar labaad waynu iska sii dhaafaynaa markaa الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. This video was amazing, really amazing. In 50 minutes, I focused on this video so aad buu hard, u yaab badan the yahay meaning and the feelings, waxaan aad isugu everything dayay inaan that fahmo was so like u fiirsado goosebumps, you know, goosebumps in my aad buu u arms taabtay and dareenkayga legs and my head. siduu My u weyn brain, yahay it caqligayga way feels ka weynaatay They carshiga remind ilaahay iyo me kursiga Allah ilaahay Almighty iyo cannot samaawaadka compare anything ilaahayna whatever marka la in the barbar dhigo earth. waxaas oo dhan Allah inay subhanahu wa waxba ta'ala yahay noqonayaan creates this world and creates me by born ilaahayna isaga in the abuurtay earth waxaas oo dhan laga while I sheekaynayay death and after die where I go. isaga ayaana inoo tilmaamay Touching. Yes, meesha subhanallah. markaynu dhibanno aynu This aadayno is the definition of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. This is the true religion. This is the Tani waa only diinta way xaqa ah. that you can know the truth of your life and everything. I think that being a Muslim is the best decision in my life ever. go'aankii I'm ugu wanaagsanaa ee aan really qaatay sure. noloshayda waa inaan Oh, islaamka it's so qaato touching. La ilaha Masha Allah. Rasulullah. ninkan Allahu Akbar. waxa So, weeyaan maybe today I'm done here. There is no more. waxa weeyaan nin u dhashay waddanka Japan oo caana ka ah maaragtay YouTube-ka reaction badanna ku samayn jiray videoyada YouTube-ka ku samayn jiray reaction ilaahay subxaanahu wa tacaala markii dambana yani keligiina maaha yani boqolaal iyo yani kumaan kun baan odhan karaa runtii kumaan kun ayaa YouTube-ka reaction waxay ku sameeyaan qur'aanka kariimka
oo runtii aad u soo jiita macnihiisa oo aad u soo jiita kadibna dhammaantoodba way wada muslimaan waayo waa mucjiso khaalid ah weeyaan waa mucjiso weligeedba waaraysa waa kalaamkii ilaahay ninka kalena waa kan isagana la dhegaysanayey oo mid waliba waddankiisa uu joogo unbuu ka dhegaysanayey kan kalena ingiriisku joogay oo uu ka dhegaysanayey ma garanaysaa isku videogana way dhegaysanayeen keligoodna maaha caalamka oo dhan baa dhegaysta oo maaragtay reer galbeedka oo dhami iyo reer bariga yani adduunka waxa ku nool oo dhan baa dhegaysta videogaas oo maaragtay ka warramaya ilaahay weynaantiisa iyo makhluuqaadka inaga sarreeya ee samaawaadka loo yaqaano weynaantooda. Allah is the greatest. Was my favorite that I've watched, and all the videos I've watched so far and all the things I've learned so far, I think that was my favorite. I did not know. waxaan filayaa dhammaan videoyadii aan daawaday kana isaguna waa youtuber kale oo muslina dhammaan videoyadii aan soo daawaday oo dhan kan baan macnaha aad ugu jeclaystay waad arkayseen sida ay maaragtay u aamusnaayeen ay maaragtay isku dayeen in u fahmaan bini aadamkana waxa weeyaan luqadda uu fahmayo ayaa maaragtay wax loogu sheegaa intaas baynu iskaga soo gabagabaynaynaa insha allah biidni illaahi kariim hada wabillahi tawfiiq wasala allahu cala nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin subxaana rabbika rabbi lcizati cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin muraadkeenna ugu weyni waxa weeyaan in aynu xaqa fahamno sababtoo ah xaqa markuu qofku fahmo waxa weeyaan dadka kalena wax buu fahamsiin karaa carruur yar yar oo fara badan baynu mar hore ka duubnay video waxaan kula talinayaa dhammaanba waalidiinta qarbiga jooga ama waddamadan reer galbeedka inay dhallinyaradooda yaryar masalan sida ay dadkan reer galbeedka ay u samaynayaan reactionka oo kale inay iyaguna qur'aanka iyo ma garanaysaa axaadiista inay ku sameeyaan iyaguna reaction oo markaasi yani arrintaasoo kordhinaysa allahuma salli calaa maxamed kordhinaysa iimaankooda intaas baynu kusoo gabagabaynaynaa hada wabillahi tawfiiq wasala allahu cala nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.